السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أصحابتو كحران channel كينا Somali Universe كسو دوادا مركا ليو برنامج كيني يسبيعو لها اي أريمها بلشدا أسبوعا برنامج كينا وحان كسو قادن دونا ساقالكي قورو ايقو ياكو بدنا اي كدعاي دنيدا balse inta aan u gudagelin ka hor barnaamijkeena haddii midaan ay tahay booqashadaada kugu horeysay ee channelka Somali Universe ha ilaawin inaad subscribe saarto. أحمد محمد داري iyo Safiya Cabdulle ayaa jabiyay rikoodka abidkaas oo ugu farqiga weyn adduunka. Axmed waxa uu jiraa 112 sano halka Safiyana ay jirto 17 sano oo kaliya. Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu ilaashanayay gabadha ilaa ay ka soo korto ayna diyaar ugu noqoto guurka. Markii wax laga weydiiyay Safiya guurkeeda iyo dareenkeeda ayaa waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay xaaskeeda iyo guurkeeda cusub. Arrinta kale oo la yaab leh ayaa waxa ay tahay in odaygu uu horay u dhalay 13 caruur oo kala duwan kaas uu ka kala dhalay 5 naag oo kala duwan halka caruurtiisa ay yihiin awoowayaalo. Douglas Prager da Silva iyo Claudia Rocho ayaa waxa ay qaadeen rikoodka dunida ee lamaanihii ugu gaagaabnaa abid taariikhda. Markii ay isguursanayeen Douglas irkiisii waxa uu ahaa 35 inji halka Claudia Rocho irkeedana uu ahaa 36 inji. Markii labadooda la isku geeyana waa wax ka yar 6 fiid. Waxay isguursadeen October 26keedii 1998 magaalada Curitiba ee dalka Brazil. Hada guurkoodii waxa ka soo wareegtay 20 sano. Waxa ay cadeeyeen in ay dhirir ahaan gaaban yihiin balse jaceylkoodu uu weyn yahay. February 2009 Jayla Cooper oo ah 9 jir ayaa loo ogolaaday in ay guursato wiil 7 jir ah. Jayla waxay la ildarneed cudurka kansarka iyada oo haysatay waqti yar oo ay ku noolaato. Cisbitaalka ayay bishan ku ahayd canuga guursaday oo 7 jirka ahaa isagana sidoo kale waxa uu ku jiray isla cisbitaalkaasi. Wiilka aabihiisa ayaa aqbalay in uu guursado gabadhaasi iyada oo loo sheegay in ay gabadhu dhiman doonto bilo yar kadib. Anna Swin iyo Martin Van Buren Bettis waa lamaanihii ugu dhaadheeraa abid taariikhda guurka. Anna ayaa Martin ka dalbatay in labadooda ay midoobaan ayna isguursadaan. Anna dhirirkeedu waa 7 fiid iyo 11 inji halka Martin dhirirkiisa uu yahay 7 fiid iyo 9 inji. Waxay isguursadeen 1987. sidoo kale waxa ay dhigeen rikoor cusub kaasi oo ahaa in ay dhaleen canugii ugu cuslaa una dheeraa abid taariikhda kaas oo ahaa 23 pound iyo 12 ons balse canuga ayaa noolaa 11 saac oo kaliya. Fabian Brito waa 6 fiid iyo 2 inji halka xaaskiisa Natalia Luzia ay tahay 3 fiid iyo 1 inji. Farqi weyn ayaa u dhaxeeya labadooda oo ah 37 inji. Farqigan weyn ee dhirirka ayaa waxa uu qaatay rikoodka Guinness World Record. Waxay isguursadeen dhamaadkii 1990. Inta badan waxyaalaha yaala qolkooda waxa ay ku cabir yihiin Natalia. Fabian waxa uu xaaskiisa ka caawiyaa meelaha dhaadheer ee aysan gaari karin inuu gaarsiiyo. Fabian waxa uu sheegay in uu nolosha aad ugu faraxsan yahay inuu la noolaado xaaskiisa Luzia. Herbert iyo Zelmer Fisher waxa ay dhigeen rikoodka guurkii ugu cimriga dheeraa abid taariikhda. Waxa ay isqabeen 87 sano. Waraysi la yeeshay labadoodii oo lagu weydiiyay sirta ka dambaysa guushooda ayaa waxa ay sheegeen xushmad, caawin iyo wada shaqeyn labadoodii ka dhaxaysa ay intaas ku gaareen. guurkoodii waxa uu dhacay May 13keedii 1924. Herbert waxa uu geeriyooday February 2011 isaga oo jira 105 sano halka Zelmer ay gadaashiisa nooleed 2 sano oo kaliya oo ay la nooleed familkeeda. cabir oo ka fikir haddii aad gasho Facebook oo aad raadiso magacaaga magac la mid ah si aad u hesho qof kula wadaaga nolosha. waatan ku dhacday Kelly Halbrand waxa ay raadisay nin magaciisu yahay magaceeda koowaad iyo keedii labaad.
waxa ay heshay qof ayada ku magac ah. Waxa ay go'aansatay inay la xiriirto, ay message u dirto oo ay la hadasho qofkaasi. Wicitaano iyo message iyo hadallo dheer kadib waxa ay go'aansadeen inay isguursadaan 1 sano gudahood. Arrinta la yaabka leh ayaa waxa ay tahay inay kala tageen 3 sano kadib. Mar wax laga weydiiyay ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay inay nolosha la soo qaybsatay qof magaceedii la mid ah. muddo 10 sano ah kadib oo ay isla socdeen 29 jirka Saraya Kamsuke iyo Jadal Devi waxa ay go'aansadeen inay isguursadaan, balse si fajac ah ayaa Saraya waxa ay gashay shil gaari ah kaas oo ay ku geeriyootay. Jadal ayaa waxa uu go'aansaday in uu guursado gabadha iyada oo meyd ah. Waxa uu sheegay in guurka uu yahay sixida qalad horey u dhacay. 41 sano jirtan lagu magacaabo Shardan Chandler waxa ay guursatay nibir lagu magacaabo Cindy. Waa guur aan inta badan la filaynin in uu dhaco. Mar wax laga weydiiyay oo wareysi la yeeshay guurkeeda cusub iyo sababta ay u guursatay nibiriga ayaa waxa ay sheegtay in nolosha nibirigu ay tahay nolol aad u macaan badan, ayna mar uun ku rajo weyneyd in ay guursato nibirigaas, ayna aad ugu faraxsan tahay guurkeeda cusub.